dhakhtarka hooyada iyo ilmaha darxanan ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu kaalin lama huraan uu kaga jiraa ilaalada caafimaadka hooyada iyo ilmaha oo uu si wanaagsan ula socda caafimaadka haweenka uurka leh iyo kuwa kale intaba ee umulaya. Waa aroor hore waxayna hooyadan loo keenay in ay umusho oo halkaasi ugu diyaar yihiin umulisooyin goobtaasi waayo aragnimo iyo khibrad intaba u leh hubinayana eegayana xaaladda ilmaha in ay diyaar u tahay dhalmo hooyada iyo in kale. qaar kale waxay u yimaadeen booqasho joogto ah oo lagu soconayo amba lagu eegayo xaaladooda caafimaad iyaga iyo ilmaha uurka ku jira hooyada intaba si loo hubiyo looguna diyaariyo inay si wanaagsan u umusho. hooyooyinka ayaa sidoo kale si fiican loo siiyaa barnaamijyo jimicsi ah oo loogu diyaariyay si ay si wacan ugu foolato oo wax dhib ay kala kulmin marka ay foosha tahay hooyada. baaritaanada ayaa loo qaadaa ka hor dhalmada waana kuwo xadidaya oo cayiman oo loogu talagalay oo sugaya caafimaadka hooyada iyo ilmaha oo ay wasaaradda caafimaadku ugu talagashay in hooyada kaga bogato xaaladeeda caafimaad iyo caafimaadka ilmaheega intaba marka ay dhalayso. waa kan Dr. Wabari Fataax oo dhakhtar ku takhasusay xanuunada haweenka ee dhakhtarka Dalxanaan oo u soo jeedinaya hooyooyinka uurka la talooyin ku saabsan ka hor dhalmadooda iyo kadib marka ay dhalaanba. waxaana yidhi sidan: horta waxaan doonay inaan dadweynaha isticmaala dhakhtarka Dalxanaan aan ogeysiyo habkaan ugu talagalnay si aan ugu soo dhaweyno islaanta uurka leh gaar ahaan iyo islaanta uurka ka soo baxday afartan baxday sida aan u naqaano. waxa weeyaan horta waxaa jira 3 meelood oo dabada ku yaala dhakhtarka gudihiisa la soo galin oo lagala socon kala islaantii ay tahay xaaladeedu degdeg ماشي waxaa jirta service d'urgence oo xaaladda degdega la tacadulaysa. halkii kale waxaa jirta consultation externe oo dabada bukaan socodka lagu eegay waxa la wixii uur leh lagu talagalay iyo laba service oo sanadkan hirgeliyay sanadkii hore iyo sanadkan ba socda oo ku shaqale la socodka islaanta uurka leh ilaa intay dhalayso. mid waxa weeyaan laga soo galay halkan la yiraahdo périnatologie oo loogu talagalay inaka wadakeena sidoo sameeysan yahay pyramid sanitaire keenu waxa weeyaan la socodka uurka horta waa bilash waa waxay shaqada ay qabato dhakhtarada hoose ee xaafadaha ku dhex yaala oo centre de santé communautaire markay ay soo gaadho markay anaka noogu yimaadaan halkan consultation externe waxa la determinaya waxa la soo garanaya riskiga ay leedahay haweenkaas uurka leh iyo riskigu leeyahay ilmaheegu khatarta ku jirta uurka ilmaha iyo islaanta hooyadaba la socota. marka khatartaas marka la determino waxa loo dirayaa périnatologiga halka waa laga wada soconaya ilaa intay dhalayso. dhalmada markay soo gaadho anaka périnatologigu wuxuu soo dirayaa qoladii kinésithérapie oo ah jimicsi loogu diyaarinayo haweenka siday si fudud ugu dhalaan. waxa la si tababarayaa sidii naqaska la isku qaban lahaa sidii naqaska loo sii deyn lahaa waxa la barayaa muruqyadii ay soo mariyay ilmaha sidii adayga looga yarin lahaa oo muruqyadii haday yihiin tondu waxa ku iman kara sidii haweenka looga celin kara inuu ku imaado khatar dilaac marka ay dhalayso. waxay u taraysaa haweenka inay muruqyadeedii jilciso ay iyadina la qabsato sidii loo dhaleeyay iyo sidii kale. horumarinta tayada caafimaadka ee hooyada iyo ilmaha ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa looga gol leeyahay hoos u dhigida geerida ku timaada ilmaha yar iyo inay kaga bogato caqabadaha ku hor yoorara hooyada si wanaagsanna u umusho amba u dhasho.